dunyadana ilaahay wuxuu siiyaa miduu jecel yahay iyo mid aanu jeclayn qofka cilmi uu ku camal falaya haysta waxay sheegaysaa inuu fadli badan yahay qofka xoolo haysta laakiin ma sheegayso inuu fadli badan yahay oo xoolaha uu helay uu ku fadli badan yahay ma sheegayso qofka caalimka ah yaxtaaju ilayhi almuluk وصاحب المال يحتاج إليه أهل الفاقة والحاجة قفك أقوانت له dadka madaxda ay maalqabeenku bay u baahan laakiin qofka maalqabeenka ah waxa u baahan dadka fuqarada ah oo shaxaada iyo oranaya wax nasiib dadkii ugu mudnaaba kii aqoonyahanka u baahan laakiin dadkii duruufaysnaaba kii maalqabeenka u baahan marka dadka mudani ka ay u baahan yihiin baa ka fadli badan ka kale qofka maalka leh waxaa laga yaabaa inuu yafqur bayna cashiyatin aw duxaha waqti yaroo dhaqsa aynu ku caydhoobo laakiin qofka cilmigiisa ku dhaqmaya bixinaya markaa dee ku camal falaya sidaa ma noqdo waxaa laga yaabaa dee inuu qofku maalqabeeyo soo maaha marka buu soo raraya baddaa la degaysa qasnad buu ugu jiro waa la dhacaya waabuu ka carari karaa caydh buu noqonaya laakiin qofka cilmiga leh isagu dee sidaa degdeg ah cilmigiisu uma baxo qof dee barakalaane ku dhacdo ku dhaqmi waayo ilaahay ilaa siiye mooyaane المال يدعو الإنسان للدنيا والعلم يدعو إلى عبادة الله سبحانه علمك الدنيا كوغو يرى علمك كوغو يرى إلهي يا آخرة سيدي كوغو هقاق لهي المال كنا الدنيا كوغو يرى انت بدن ركاتين مال كشقين يسو والله يا بابي هذا العلماء وفرق جيونه أن المال يكون سببا في هلاك صاحبه مال كونه سبب النقضة قفك هايستا إن لود لا ما نقضة مديارة لكن قفك إسكان فرمرنا هلكا إسكان لغينيا والله يا بابي أنا عندنا كقفص توج ينوج إياك وحدة عيا دك حوالها حنبارسا إذا كانوا إذا قصدنا حنبارسين بدنا كل جي إسكان لغينيا وقميصكيسا iska gashan yahay de ka wax si tuuma lagu dilaya kan kale wixii deeqdiisu ay u qarsoonta ilaahay uu siiyay cidina kuma qabsanayso sabab uma noqonayso halaagiisa cilmigu ama qofka caalimka ah waa qudwatun wa qiimatuhu fi dhati amma al-ghina fa qiimatuhu fi mali qofka had iyo jeer ahlul cilmiga ah qiimadiisu ama tayadiisu waa wax daatadiisa la xiriira iyo laftiisa iyo naftiisa qof oo wixiisu waa mutasil isagu ku xidhan yahay qofkan kale maalqabeenka ana qiimihiisu waa maalkiisa maalkaas lagu qiimeynaya laga yaabo inuu sida dhaqsaha waayo taajirka caaw dhaqsaha u noqdo marka way kala duwan yihiin qofka waxa lagu qiimeynayaa isaga ay ku xidhan tahay ee uu la xiriirsan yahay iyo qofka uu mufasilka ka yahay ee uu ka soocan yahay qisaynu marka raacin lahayn sheegaysa had iyo jeer qofku hadduu maal doonayo oo uu maalkii seego oo uu cilmi helo sadkii weynaa inuu helay oo aan u calaan calayn maalkii uu waayay ama waxbarashadii kale adduunyada iyo sancadii uu waayay uma darsanayo hadduu cilmigii samaawiga helo qisadaas waxay dhacday waqtiga Haruun Rashiid ummadda oo madaxda u ahaa madaxweynihii mamlakadiisu ay ballaadhnayd ama intuu ka talinayo waxa dhacday ninkii la oran jiray Abu Yusuf ayaa adu waqtigiisii baa qisadaasi ay macnaha ninka ay ku dhacday baa la kulmay Haruun Rashiid laakiin waqtiga dhacday uu ka horeeyay qisadaas waxay la kulantay Abi Yusuf imaamkii la oran jiray saaxibu Abi Hanifa sida loo ogsoon yahay madhabta Abu Hanifa ama madhab al-Ahnaf inta badan waxa ururiyay oo ku ijtihaaday saddex sheekh oo Abu Hanifa uu gudoomiye waxa Abu Hanifa يا أبو يوسف يا محمد إنك هذا بقى صدنا إلى كل أنت وحى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة
isagaa ka warbixinaya wuxuu yihi hooyaday ayaa anigoo yar agoon baan ahaa marka hooyadayba ay kaxayn jirto meel aan ka soo barto farsamada ayay geyn jirtay sidan wax loo nadiifiyo iyo doobiyada iyo waxa oo bariga iska yar lacag lahaa markay dirtay tiraahdo orad halkaa tag xirfadda laga soo baranayo ayuuban aniguna la yara fadhiisan jiray buu Abu Xaniifa markay aragtay inaan hawshii ka habsaamayo ayay kaxayn jirtay intay gacanta ay qabato sheekha ay kaxayso kii doobilaha bay geysay isho walba aniguna waa la sheekhu ma la sii fadhiistaabu iyaduna isho walba way timaadaayo way iga kaxaysaa markii dambe sheekhii bay ka cabatay waxay tiri sheekhow ninka inaan kan lugoynaya waa adiga هذا إن كان مستقبل كيس سيجيني وأقول أنا وحن دونيا مالو شلمدي سيء قحويسة كسر شقيسته أيان دونيا لأنه كتاب كان طول فردي من دونيا ناس كده بروح يسكعون يا فستقية دهنية أنا وأدي قوي برورية تشيربو يسكعون يا إسكعتك وجد كهذا يا به رو فهمي وهذا وحي كتر واحد من عقلي قال لك أجتشوا وإسكعتك طيب ويوديسي markay ka kari weyn Abu Xaniifa rahimahullah kolku arkay Abi Yusuf inuu aad ugu dadaalay cilmiga oo aad u jecel yahay si gaar ah ayuu la dadaalay unadiisii uu ka bixiyay casharadii uu si gaar ah u baray oo aad buu la dadaalay dadaalkiisi wuxuu keenay inuu socdo markii dambe uu sheekhi noqday sida aan hore u soo sheegnay arkaantiisii madhabta la qoraysay markii dambe qaadigii umadu noqday madaxda kuwii la talinaya masaa'ilka laga raajacay buu noqday maalkii ay islaantu la doonaysayna mid ka badan baa hoostiisa yimidba ibka marka Abu Xaniifa madhabtiisa laga warramay waxa la yiraahdaa Abu Xaniifa sidaas uu wa khalafa saahibahu labadiisi saaxiib way khilaafeen ama Abi Yusuf ba khilaafay taa macnaheedu marka waxa weeye qowlkiisu ma miisaan badnaa kol haddii aan taageerayaashiisii madhabta la qoray ku raacsanayn halkaasuu gaaray sheekhaas waqti dambe ayaa maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ninkii madaxweyne muslimiinta la qadaynaya Haaruun Rashiid la odhan jiray ayaa fustuqii iyo saliidii iyo wixii uu Abu Xaniifa yidhi wuu cunayaa ayaa ninkii madaxda ahaa loo soo dhigay kolkaa Abu Yusufna waa la joogaa maqaaladii buu xusuustay marka ninkan isku dhuuq buu cunayaa iska daayay oo iskaga tagtay islaanta ku yiri isku dhuuqii baa la soo dhigay berigii dambe isagoo madaxweynaha la fadhiyay wixii uu Abu Xaniifa sheegay ayaa la soo hordhigay markaasuu qoslay madaxweynaha baa ku maxaad ku qoslaysaa suudo arrin dhacay baan ku qoslaya suudo ilaahay baan ku dhaariyay sheeg qisadii buu markaa uga soo warramayo maanta casuumada hortaale quruxda badan inuu Abu Xaniifa bari hore sheegay inaan kanoo iska agoono faqiir oo uu waxa soo cunaya waxaan imika la soo dhigay marka tanaatii xusuusay casuumad buu cunaya iskaga casuumadana tii ku xusuustay marka isaguna uu sii dhiiri galay wuxuu markaa xusay in cilmiga lagu helo fadli aad iyo aad weyn Abu Xaniifana uu amaana wuxuu yiri kaana yanzuru bi'ayni aqlihi la ma yaraahu bi'ayni ras min waxa abu aqliga wax ka arkaya oo ishanuna waxba ka arkay erayga markuu ku dhinin il dheer buu haabo cilmiga runtii aqwaasha ay culimadu ka yiraahdeen iyo fadligiis ma soo koobi karno oo aad bay u badan yihiin Yahya ibn Mu'aad ahad al-aarifin billah waxa uu lahaa al-ulamaa arhamu bi ummati Muhammad min aabaa'ihim wa ummahatihim قالوا كيف قال العالم أرحم بتلميذه من الأب والأم بابنيهما وحول علماء ضدك أي وحبريا ويوقف فائدة بدين وأنا يوقن حريص بدين والدك وقفك الدين تبريا أي عرور توقن حريص بدن والدك هذا هو يدودي أبهد يقول نار تأدوية ذي والدك كلا عرريا isaguna naarta aakhiru kala cararayaa waalidku hadiyo jeer wuxuu isla ilmuhu yu gaajoon ilmuhu yu darxumoon ilmuhu yu duuyo waay waxa loo dhabe adduunyada isugu soo ururaya laakiin cadaabka aakhira iyo cadada ilaahay buu kala cararayaa buu caalimka wax baraya
marka si dhaba marka loo eego nolosha ilmaha waxa ka talinaya qofka diinta baraya buu leeyahay aimadu saasay u qiimeyn jireen cilmiga dadkana ugu dhiiri gelin jireen marka waxaynu intaasi raacin lahayn haddii aynu fadliga cilmiga iyo inuu maalkii ka fadli badan yahay cadiyadaha ilaahay uu bixiyaba ugu fadli badan yahay qofku ilaahay camalkiisa waafajiyo soo aragnay waxa loo baahan yahay qofku marxaladda wax baran karo daadiisu ay yar tahay dad iskuma jira cilmiga uu xasilin karo sida dhalinyaradiina badan ee halkan fadhiya 90% inuu marxaladda dahabiga qiimaha badan qofku ka faa'iideysto qofka marxaladda uu yar yahay cilmiga ka faa'iideysto qofkaas cilmiga u sugmaa waayo haddii marxaladdaas ku dhaafto maxaa ku xiga waxa ku xiga inuu qofkii mashquulo waxa uu ku mashquulayaa mas'uuliyad madax buu noqonayaa xaas buu noqonayaa adduunyuu dhex galayaa iyo ururinteeda laabina laba ula abaalay sooma laabi laba ula ma jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi qofna ilaahay laba qalbila kama dhigin qalbigaaga arrimaha kale u jahaysanaya sidaa daraaddeed baa culimadii muslimiinta qaybo ka mida waxaa loo yaqaanay alculamaa alcuzaad aladiina aatharuu alcilma على الزواج عبد الفتاح أبو غدة شيخ سوري قاعد كتاب قرأ مقع عليه علماء ما جورستنا أبو علم جودي كدورتي إن حاسي عشان يجورسنا إلى عشان صدق عالم بترنايا ويقول ردن يا أبتيت كه هي علم جاي برنا يعني قرأ يعني تذكر بريا وحكم لها الإمام أبو طبري الإمام الطبري وشيخ المفسرين شيخ هذه يشر مرجع علماء تفسير رجع جوهر هي تفسير في القرآن كوحكة قرآن بقول ستدوها علم إساس بكم مشغولة وحكم لها إمام النووي رحمه الله واشتغلنا إنه قرنا إنه أنتم كتبية مراجع إنه قد تجي نحل ولي بدأ هذا كل انتهينا يريد دوري فرتنشروها وحكم ذا ابن تيمية رحمه الله ويسقنا دائما قرنا إن التراث كي الحلق كتجي يد ذا الكيس وحكم ذا محمود بن عمر الزمخشري ويسقنا كتاب كوين التفسير كشاف له إلى ظلها كبايو ترينيا ولا يا إن سدا أو قروح بدن سدا وتقول أنا حاشية هاي أنا إيجا وتقول سدا مركز دربان كالله توم يا من الله هسي أنا حاشية هاي أنا إيجا لو نكس كبايدير بترينيا وحكم دهاش إمام كاللورن شري خليل الخالدي ويسقون قصة عجيب لها عالم كوردن بو مكتبته سصمر أنت ضد كمسلمين تيو بدنا شرين إلى كنت المجلد بو كقري كتبت صار كي مقعيدودي dadka alifay way ka hari waayeen ehelkiisii oo markii u dambeysay waa loo guuriyay waa loo aroosay habeenkii u horeeyay kadibna markii loo soo xareeyay ayuu bal yersub maktabada yar galay waxbaan daalacanaya waagi baaba soo dhawaaday hadda waa aroos adiga hadii xabad lagu aroosan maxaa sameyn lahayd waad ku haliili lahayduun isagu taasi kuma hawlanee wuxuu ku haleelay xaqi kutubti fursad ma yar siin karaysaa inaan wax akhriyo aroosadii buu ku haabayt markii salaadii subaxdo soo dhawaatay ayaa lagu garaacay aqalkii markaas uu soo jeedsado markaas ay miyadii lawada aroosadii arwaan ilaa way kuntu anha fi shughli arwaan ka mashquulay tan muraadkeeda u dhameyn kari maaye nabadaygu subaxdii iska furay ده حق بيقول له ده الحقينا ما وفين كره أبتات كيبو حاجة مكتبات دي علم وجهه بس كفراي هل كسر لك هاي كواحد نقول لنا هاي دائرة إن بدنا كم يده كورك كودك دقيقة دي عاد كورك قشوها وشادو نقاضه وشعيل كاسو كقاضة شعيل كي كتبته يرانا ولماذا إني هروح يورنشرين من دخل بين الفخذين ذبح دينه qofku hadii uu dumarka la kulmo xaas uu yeesho wax barashada cilmigu way ka soo gaabatay ama cilmigiisii uu baranay uu gowracay
anaa waxay uga jeedeen isqaban maysa bay lahaayeen marka dee culimada qayb badan oo ka mid ihi way guurka way badin jireen dhaqaalo way raadin jireen labadaba way isku wadeen laakiin hadday isu kaa qaban weydo sidaa culimadaasi ay uga doorteen guurkiina waa sunne cilmiga barashadiisiina waa sunne marka guurkii bay dambaysiiyeen ama cilmigunbaabay u baxeenba iyagoo aan aaminsanayn dee inuu sunnihii nebiga yahay iyagoo aaminsan haddana culayskii halkaasay saareen marka intaad wax xasilinayso ee da-yar tahay inaad guurka ka samirtaa waa taariikh waa wax laga dayan kara culimada waxaa kaloo iyaduna cilmiga aafo ku noqon karta intaad yar tahay inaad xasiliso inaad adduunyo raacdo oo aad shaqo daba cararto sidaan filayo mucalimiin badani dhalinyaro badan inay yihiin qofki isagoo weli aan cilmigii tamakunin oo aan weli xasiila cilmiya samayn oo cilmiga aan wax ururin oo shadada weli wax badan ku ridin ayaa wuxuu isku dayayaa inuu ama iskuul ama malcaamad ama meel part time uga shaqo tago shaqadii baa si yar yar u jiidanaysa kadibna cilmigiiba waa ka goosanayaaba aimada in badan oo ka mid a waxaa loo yaqaanaa alculamaa alfuqaraa ayaa jiray culimadii fuqarada ahaa oo waxay ka doorteen maalkii cilmigay ka doorteen waa nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa waxa uu ku dhaha manhumaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya laba maman ama abateed hayaa ma dhergaan waa qofka cilmi u ooman iyo qofka cuud iyo xoolo u ooman marka haddii haraadkii ku helo labadaba aad u haraadanayd casriganna aad joogto xagga wuxuunaad u ciiraysaa inaad maal raadiso marka qofkii inta uu wax fahmayo ee wax uu ummadda u gudbiyo oo si fiican u garanayo inta uu ururinayo inuu shaqada u kaadiyo wey oo dadkan had iyo jeer adduunyada dee cilmiga adduunyada soo bartaa waxay dhahaan horta qofku ilaa uu gaarayo heer uu mushahar weyn oo wanaagsan wax ku barto wax ku helo inaanu shaqo gelin marka waxaan odhanaya horta secondary-ga aan dhameeyo digriga haddana aan dhameeyo haddana master aan qaato PhD aan qaato khibrada aan yeesho intaa kadib baan shaqo tegaya intaa muxuu u socdaa qof waa in mushahar wanaagsan oo helo iyo boss loo magacaabo oo madaxu ka yahay waxaa arrintaa ka mudan qofka cilmiga sharciga diiniga baranaya qofkii ilaa uu gaarayo heer uu naftiisana anfaca ummadana wax wanaagsan oo daliilaho saxiixa uu u sheegi karo mutamakin uu ku yahay oo hadhowto wax aanay kaga soo noqon ilaa heerkaa gaarayo inaanu cilmigii maalka uga baydhin isku dhex darin shaqadii iyo cilmigii uu cilmigiisa ku egaado wey sidaa daraaddeed baa daa taariikhda akhrida culimo badan oo culimada fuqaradaa loo yaqaanay baa jira faqrigoodaasay iska dugsanayeen dee kow waxaa ka abi hureyre aanaynu ka soo warramayn abi hureyre isagaaba sheego wuxuu uhi dee cuudkiiyo xoolaha waxaan u daayay inaan shaqo tago ilaa asxaabta qayb baa suuqa tegayse berigii dambe markii abi hureyre lagu ururay asxaabta qaarkood baa calaamcali jiro odhan jiray suuqii aanu anagu ka shaqaysanaynay ayaa cilmigii naga reebay markii la xujeelayo xadiiskaa miyaanad maqal arrinuu ku khaldamay loo sheegay xadiiskaa miyaanad maqal ee la isku raacay la xadiis caan oo dadka yaryar garanaya wey isagoo nin weyne uu garan waayay markaas nin waliba wuxuu leeyahay intaa suuqa ka shaqaysanaya baa la dhaafay oo cilmigii nabiga laga qaadanay sallallahu alayhi wasallam la igu dhaafay waxaynu baraarujinaynaa daayare oo casrigan soo kordho soo biiray arintaa in aan lagu degdegin shaqada iyo in la israaciyo oo la iswaafajiyo ama aad istiraado isku wad isqaban mayso imaam dabari oo aynu ka soo warramaynay culimada markay ka warramayaan taariikhdiisa sidaa uu sawaajkiyo guurka uga tegay buu xoolahana uga tegay shaqaysiga bay leeyihiin isaga iyo nin ay walaala yihiin ayaa marka bannaanka loo baxayo bedlad wada lahaa bedladda ma garanaysa labiska la xidhanayo bannaanka lala tago labadoodaasa wada lahaa faqri intay ka gaadheen kana mid ayaa markaa gashanayo dabaduu la tegaya kan kale intaa guriguu sii fadhiyaa leannahu ma helayo wax weyn oo hagaagsan oo bannaanka loola baxo khamiiskii iyo cumaamadii culimadu xidhan jireen ma helayo ka kale markaa waa inuu iska joogaa guriga imaamu nawowi raximahullah isaguna sida taariikhdiisa ku xusan sidaa uga tegay guurka xoolahana uga tegay isagoo nin weyn oo caalimo baa aabihii biilin jiray oo nawa uga soo diri jiray biilka marka waxaynu leenahay maanta waxa dhacday qofkii qur-aankii buu xafidaya kadibna intaan horta culumtii sharciga ahaa waa dhalinyaro badan waan arkay intaan culumtii sharciga ahaa u dhaqaaqinba ayuu odhanayaa gelinka dambaan bal madrasada wax ka dhigaya si aan $150 uga helo maalmaha gelinka hore waxbuu yaro barbaranaya
boqol iyo kontonkaasuu yaro macaansanaya oo mobile iyo smart iyo waxbuu ka yara iibsanaya dhar wanaagsanaya wuu yar dhadhaminaya ilaa maashuu yaro macaan tahay gelinka dambena macallina waa ku daray buu leeyahay haddaba anuu labadii gelinba buuxiye qur-aankana wuu yaqaana goorma cilmigii sharcigaa baranaya isagoo iska caamiya ayuu haddana islaan kale isku raraya markuu xoogaa ururiyo gaari yarna wuu kaxaysanaya garhkii iyo dee qamiiskiina wuu yeeshay qur-aankana wuu yaqaana ogow dee fatwaa la weydiinaya isna mid qalad uu dhiibaya xayraan bay ku dambaynaysaa markaa marka dhaqanka noocaasa inaad bedeshaan oo xasiila cilmiya samaysaan oo qofku ilaa tamakun gaarayo oo waxa uu markaa baranayo si fiican u fahmayo dadkan hadhow u gudbin karo taladaasaynu raacinaynaa inuu sawaajkii iyo guurkii ka samro shaqadiina ka samro ilaa inta uu cilmiga si wanaagsan u baranayo mukhtasaraadka kutubta yaryar iyo mutawasidaadku ah kutubta dhexe iyo mudawalaadka kutubta dhaadheer saddexdaaba waa inuu wax ka barto sida wax loo baxfiyo iyo sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo gudbiyo intaba waa inuu tamarus ku qaataa imtixaan lagaga qaadaa oo tadriis uu galaa tadriis qofku waa inuu diraasad u galo maaha wax barto ee inuu dadkana wax bara wey jahligaagu wuxuu kuu muuqanayaa markaad miiska soo fadhiisato ee aada isku daydo dadka inaad wax u gudbiso axadulculamaa baa wuxuu lahaa qofka isku daya inuu dadka wax u gudbiyo maskaxdiisuu dadka u soo bandhigay garaadkiisu inta uu yahay cilmigiisu inta uu yahay caqligiisii iyo cilmigiisiiba sacabadu soo saaray kaasuu leeyahay bal ila eega marka intaasoo ka aqoon badan iyo intaasoo ka caqli badan baa soo fadhiisanaya markaa wuxuu noqon karaa qof dadka qanciyo lagu ururo ama laga kala cararo oo la ceebeeyo saa daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdaan man tasadara qabla awaanihi faqad tasadara lihawaani qofka u baxay inuu dadka waxu sheego intaanu heerkeeda gaadhin dulligiisu unbuu u banbaxay marka inta aynaan gaadhin heerkaas waxaa muhiima dhalinyaro inaynu xasiilada cilmiga iyo sahayda qaadano aynu culimadana aada uga faa'iidaysano iyo fursadda iyo nicmada ilahayna siiyey ee aan berigii hore lahayn jirin berigii hore culimadii soomaalidu si ay wax ku baran jireen sidan ubay dhoweyn rafaad bay ahayd iyo dawarsi iyo qofka oo duruuf adag mara maantana intee oo tiknolojiyada intee oo nicma dharkii dhuunigii guryihii iftiinkii aqoon-yahankii maktabadihii ashridadii cilmigii ahama laga buuxiyaad haysa waxaad qaadan kartaa 20 sheekho intaad gurigaaga la fadhiisato ayaad habeen iyo maalinba cilmiga ka nuugi kartaa waxaa soo dhami dadka xujay ku noqon karaan si kalena waxay noqdeen wax dadkii ay ku lugayeen oo isdhigashay keentay inuu qofkii isdhigto oo idhaahdo dee hadhowta si dhib yar baad halkan uga eegi doontaa waxba ha isku hawlin marka intaa lifaaqaa dambe waxaan u raaciyey waaqica dhalinyarada hadda jira qalloocaasaa gala waa inaynu saxno oo inta ay goor tahay la yareeyo sheekada facebooka la wado maqaaxyaha lagu haasaawayo ee kursiga lagu qaadanayo da'yartu sheekada ay jecdahayaan iyo arrimaha kale weli isagoon gaadhin heerkii munaasibkaa u gelaya وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته